maqan inaan isku tashanno lafaheena aamino wiilasheena aamino tababarkay u baahan yihiin aan siino kharashka wax kale aan ku bixinayn aan ku bixino ee kuwa boorsooyinka wata la siinayo taasaa waxay aad uga fiican tahay inaan siyaalo kale iyo ciidan kale oo sheeya tala saarana midaasaa mar walba inooga fiican sidaa daraaddeed maanta fulinimana laynoguma sheegi jirin kuwa inala dagaalamayana waa Soomaaliya in yaroo kale lagu daray laakiin waxaad moodaa inaan inagu u baahannahay isku tashi dhaba inaan samayno oo Soomaalinimo waxaan marar badan ka hadlay AMISOM iyo kuwa dhaqaalaha ku bixiya iyo Soomaalida intaba inay dhibaatada ugu weyn ee jirta ay tahay la xisaabtan la'aan waliba aan eedda u soo jeedinay dawladda federaalka oo ay ku yartahay xisaabtanka ciidanka AMISOM kuwa dhaqaalaha siiya maxay qabtaan shaqada laga sugaya away xagee loo socdaa ma la socdo in inta lagu xisaabtamo iyagu waxayna weydiinayaan ay tahay away ciidankii Soomaaliyeed raaci lahaa inaan iyagana u hurno wiilasha ciidanka ee Soomaalida ee ciidanka waddanka ka dagaalamaya dhaqaalaha ay u baahan yihiin iyo baahidooda logistikada intaan iyagana u diyaarino ay ku tala galaan Soomaalinimo iyo inay u dagaalaan waxaan u maleeyaa cid ka geessan inayna jirin taan ka shaqeyno arrintaasi mas'uuliyadda dawladdu ay leedahay qaadato waxa jiray madmadow inta badan la sheegay hadda waxbarashada laga hadlayay amni baa laga hadlayaa wax badan oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay tirsanayaan waxaan u maleynayaa iscaafis guud baa wuxuu ka dhacay Garowe oo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu yiri war hal iscaafiyo oo aan tashano oo gacan geel jira kor looma maydho hoos aan u maydhno waa eray saxaabay ahayd tii bay qayb ka tahay gacmiga hoos loo maydhay ka mid ahayd safarka ra'iisul wasaaraha uu ku yimid halkan iyo wasiiradii ugu muhiimsanaa waliba waxaan idiin sheegayaa inta la socota inta badan annaga dalbanno wasaaraddaana waxbaa nagala jira taana waxbaa nagala jira ha yimaadeen si fiicanna wada hadalkay ugu dhacay aad baan ugu faraxsanahay laakiin in la abuuro kalsoonida iyo waxa dadka kala mudan yihiin waa shay muhiima waxaan rajaynayaa iyagana aan isla garanay waayo dadku wax badan bay waxay isweydiinayaan tolo madaxweynuhu muxuu idiin sheegi doonaa wixii aan nimanka ka tabanayna ma dhammaatay hadda suldaanku wuxuu yidhi walba waxaas hal libaax harkiisa ma godlato nimanka dee aarkii baa ka dambeeya waxay noqonaysaa in madaxweynaha meeshiisii loogu tago isaga aan wada hadalka dhabtaana isla gaadhno wixii heshiisana aan soo qaadana haddii ilaahay yidhaha laakiin mabdi'iyan waftiga yimid iyo ra-iisul wasaaraha waan isla qaadanay qodob kasta oo cabasho ay ka jirtay ama wax la iska weydiinayay mid walba sidiisaan isula meel dhignay waanan ku heshiinay waxaanse isla qaadanay inaan safar dhow madaxweynaha inuu yimaado iyo in loo tago inay ka fiican tahay in isaga loo tago marka hore taa hadday noqotay marka inaan anigu u tago oo madaxweynaha mar haddii waxoogaa ay soo baxbaxday xalkii la sameeyo waxaan rabaa erey aad loo warwareejinaya inaan maalin dhaweyd aan idhi aan ka hadlo maalin dhaweyd baa hadal waxaa iga soo dhacay aad baan very emotional u noqday soo dhoweynta xooggeeda waxay la noqotay wax aad u weyn waxaan siri malaha ra-iisul wasaarihii ma madaxweynihii ka weynaa baa jooga taasaa waxay keentay markaa inaan idhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda tiyo waxaa la yidhi warar badan laga turjumay inkastoon markiiba ka cudur daarto oon ku idhi wuxuu ahaa hadal oo carabka uu sidaa u waxeeyey haddana soo dhoweynta aad u cuslaydoo waxaan siri madaxweynihii baa jooga marka aan lafteeda argagax u jiray gadaal markaan fiiriyeyna sawirkiisii baa saaraa markaa taa aad baan ugu sheegayaa dadka warka inta badan raadinayahay waa iska macno darri weeye in loo jawaabana sax maaha laakiin waxa dhabtaa ee laga hadlayo iyo waxa uu yahay in la fiiriyo asala mudane ra-iisul wasaare aad baan ugu mahad celinayaa adiga waftigaaga waxaan rajaynayaa reer Jubbalandna maanta amni hadduu jirana waa midka aad arkayso oo magaalada aan saan doona u dhex marayni soo dhoweyntana asal baanu nahay waxaan u baahan nahayna waxa weeyaan dadkaani waa dadka idinku xukunteen waa shacabkiinnii ha ku ekaanina villa Soomaaliya waxaad ka gaabiseen oon hadda ka hor idinkala hadlay madaxweynahana waan la hadlay adigana waan kuu sheegay waliba dawladda federaalka dhagax dhig badan bay leedahay oo aan aad u soconin waxaan idinku idhi shirkii golaha wasiirada markii aad halkan lagu qabanayay ra-iisul wasaare xafiisyo aad leedihiin dhista
guryo dhisa safaarado shirarka doontaan ku qabsada furayaasha idinku aad leedihiin madaxtooye ama Jubbaland kaliya state kasta xaruntiisa xarun federaalku uu leeyahay oo guest house leh oo guryo oo xafiisyo leh inay ka dhisaan oo ayna shaqada dawladdu ku ekaanin inay xamar kaliya ku koobnaatee ay noqoto mararka qaarkood hay'adaha dawladda iyo shirarka gudiyada joogtada ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo inay ka dhacaan caasimadaha kale dawlad goboleedyada si shacabku ay u gartaan dawladda ay shacabka u yihiin iyo mas'uuliyintoodu kuwa ay yihiin laakiin maanta reer Jubbaland haddaan reer Jubbaland iyo mas'uuliyintoodu kor taagan tahay madaxda federaalkana TV sheegayo ay ka maqlaan iyo qolo saxaafado aad u sawiraysa inay u qaataan dawlad kale inay tahay maxaa u diidaya waxaan isleeyahay arrintaasi mas'uuliyadeeda idinka iska leh waxa dhagax dhigtaana ka dhaweeya dhismo sameeya isku xidhka iyo dawladnimada iyo isdhaxgalka waxa asal u ah socodkuna inuu ku bato meel aydan u baahnayn in la idin soo dhaweeyo iyo in la idin marti qaadiyo in la idinku waxeeyo gaadiidkeeda iyo guryaheeda iyo xafiisyadeeda leedihiin baad isteed walba ka dhisi kartaan iyo gobol walba inaad sidaa yeeshaan baan aad u soo dhaweynaya manihin warka inta u badan ee tuhunka dawlad goboleedyada iyo wax gooniya maya waxaan rabnaa aan marar badanna ka hadlaynaa sharci baan leenahay dastuur baa jira in isaga lagu dhaqmaayo waa shay aad u fiican dadku waxay ku heshiiyeen ay dhigteen baa asal u ah inay isaga ku heshiiyaan inay isaga ku dhaqmaan inuu isagu kala hago waa mid shay asala waan idin soo dhaweynaynaa waxaan rumaysannahay madaxweynaha qaranku inuu yahay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya annaguna aan nahay xertiisii iyo kabiiradiisii iyo kuwii la shaqeynayay ra'iisul wasaaraha sidaas oo kale marar badan shirkii iigu horreeyay aan ka qayb galay Garowe waxaan aad u idhi magacyada aan kala bedelo oo bal aan ama madaxweynaha aan magac kale u bixino kolan boqor yar iyo wax nidhaahno ama kuwa isteediyada aan magac kale u bixino madaxweynenimada aan ka dayno oo dastuurka intii lagu qoro xataa magaca la saxo haddii kale marar badan madaxweyne waa la isooran doonaa aad baad u mahadsantihiin waan soo dhaweynayaa reer Jubbalandna waxaan leeyahay dawladda in lala xisaabtamana ceeb maaha in annaga nala xisaabtamana ceeb maaha waxaan kala tabanayna inaynu sheegnana waa sax madaxweynahana waana soo dhaweynaynaa awalna waan soo dhaweynaynay waanan u tegaynaa awalna waan tegi jiray in la wada hadlo oo wixii dan ee dadka ka dhaxeeya la isweydiiyana waa shay waajiba waxaan ka wada hadlaynana wax qof leeyahay maanta aniga waxa la igala hadlayo ra'iisul wasaare xasan khayre oo Jubbaland uga baahan yahay maaha wax reesha waxaan islaan ay leeyihiin iyo waxaan qaraabo ku leeyahay wax dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin iyo dalka Soomaaliyeed waxaan iyaga weydiisanaynaa kala hadlaynana wax naga dhaxeeya sidaas mudane ra'iisul wasaare ku soo dhawow Kismaayo makarafoonka ku soo dhawow aad baad mahadsantahay salaamu alaykum بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة قبلاتك جبلان مدحوينك وحقين كيسا دمان حلبان ندا وي اوغو هوريو قدوميو هذا بارلمانكا دلن يردا هوينك سوماليات وضياشا يسالادينتا فنانينتا يدمان شعب كرر جبلان iyo wafdigeygii wasiirada iyo taliyaasha ay ugu horeeyaan oo ila socday iyo cid walba halkan joogto ay saxaafadda ku jirto marka hore anigoo ku hadlaaya magaca dawladda federaalka waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyntii waxaan leeyahay madaxweynaha
iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland way ku mahadsan yihiin soo dhaweynta diiran oo aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigayga soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha aad soo dhaweyseen waxay la macno tahay idinkuu soo dhaweeyay madaxweynaha salaantii uu igu soo kiin dhiibana iga guddooma halkan ma ahan dawlad kale ama dal kale halkan waxaa jooga shacabkii Soomaaliyeed oo leh qabiil walba oo Soomaaliyeed oo ay isu keentay Soomaalinimo halkan waxaa yimid ra'iisul wasaarihiinii iyo wasiiradiinii iyo taliyaashiinii oo ah idinka adeegayaashiinii waxaa idin yimid dad idinka idin shaqeeya oo shaqaale idina waxaan rabaa markaa fikirka ah in loo arko in martii idin timid inaad u aragtaan inay idin yimideen dadkii dawladdiina idinka idinku matalayay xaqna aad u leedihiin inay idin yimaadaan inaad la xisaabtantaan aad xaq u leedihiin intii aan joognay halkan waxaa noo suurto gashay inaan aniga iyo madaxweynuhu yeelanno wada hadal dheer aniga iyo madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo isaga iyo taliyaasha ciidamada ila socday aniga isaga iyo qayb ka tirsan golihiisa wasiirada iyo golahayga wasiirada waxaan ka wada hadlaynay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dawladda Soomaaliyeed iyo dhammaan dawlad goboleedyada xubnaha ka ah waxaa kaloo ii suurto gashay inaan arko salaadiinta ganacsatada dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland iyo madaxda reer Jubbaland iyo dad kale oo badan oo ka mid ah bulshada sidii uu sheegay ugaaskii halkan soo istaagay waa isu ugaasaynay waana dardaaranay dardaarankiina waa sidaa sidii uu sheegay madaxweyne Axmed ama aad ka dareenteen hadalkiisa malaha hore waa u taqaaneene waa dareenteen inay wax hagaageen sidii uu sheegay inta dhimanna waa dhammaystiraynaa xamarna wuu noogu imaan doonaa laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego markii hore oo aan imid Kismaayo iyo markii haddaba aniga iyo wafdigayga waxaa naloo soo dhaweeyey si diiran waxaan rabaa inaan idiin sheego mar walba oo ay jirto mugdi ama dadka Soomaaliyeed ay dareemaan waxaa jira kala aragti duwanaansho meel walba oo aan tago Soomaalinimadu way ka xoog badan tahay taasi waxay astaan u tahay rajada u muuqata ummadda Soomaaliyeed sababta aad u aragtaan mararka qaarkood in la isweydiinayo su'aalo waaweyn sababta aad u aragtaan in la xisaabtamayo sababta aad u aragtaan in cid walba oo Soomaaliyeed sidii gabadhii halkaas ka hadlaysay ay rabto in codkeeda la maqlo waxa ay tahay waxa soo adkaanaysa dawladnimada waxaa kor soo kacaya fahamka Soomaalinimada in la isqabqabsado waa qayb ka mid ah dawladnimada sababtoo ah isbeddelka isqabqabsiga waa in la kala tago si marka dawladnimadeena ay u xoogaysato waxaa loo baahan yahay in la adkeeyo xariga ama xarkaha dadka isku haya kuwaasi waa maxay waa inuu jiraa nidaam degsan oo caddaynaya waa maxay dastuurka aan rabnay inaan yeelanno mustaqbalka waa maxay awood qaybsiga ka dhaxeeya dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka waa maxay khayraad qaybsiga ka dhaxeeya waa maxay shaqooyinka ay kala leeyihiin waa maxay sharciga mustaqbalka doorashooyinka dalka xadidi doona waa maxay maqaamyada ay kala la yeelanayaan magaalooyinka waaweyn ee dalka sidee baa dunida loola dhaqmayaa siyaasad noocee ah ayaan rabnaa inaan ku shaqayno 100 sano soo socota su'aalahaas waaweyn ayaana hor taagan su'aalahaas waaweyn waxay kalifayaan marka
mararka qaarkood inay khasab tahay in la xisaabtamo waxaa kaloo kalifayaan si dhalinyarada halkan joogta oo shacabka Soomaaliyeed ugu badan ay wax nooga dhaxlaan inaan wax meel ugu qorno inteena waaweyn oo hadda madaxweyne Axmed sheegay uu lahaa waxaa sii dhamaanaysa intii khibradda u lahayd dawladnimada waxaa nagu waajib ah marka inaan intaas dhamaystirno dhalinyarada aan la kulmay ama ganacsatadii aan la kulmay ama salaadiintii aan la kulmay ama madaxdii aan la kulmay ama ciidankii aan la kulmay cid walba oo aan la kulmay dareenka ay qabto waxay tahay inay ka walwalsan tahay Soomaaliya dariiqay ku socotaa xagee bay tagaysaa 10 ama 20 sano soo socota waxaan rabaa inaan idin sheego sida idinku aad ugu baraarugsantihiin in daawada kaliya ay leedahay ummadda Soomaaliyeed in daawada kaliya ee xalka lagu gaari karo ay tahay inaan kulligoon oogno Soomaalinimada taas ayaan ku shaqeynaynaa waxaan rabnaa inaan hortiina ka ballan qaadno midnimada ummadda Soomaaliyeed in laga shaqeeyo muqaddas inay tahay inay qalbigeena ku taalo ugu dambeyntii waxaan leeyahay shacabka reer Jubbaland inaad ogaataan maanta xaaladda dalku uu marayo dhaqaalihii dalkana uu soo hagaagayaa ciidamadiinina dib u habeyn ayaa ku socota oo dib u dhis ayaa ku socda oo taliyaha idin sheegi doona ila socda arrimihiinni bulshada iyo adeeg abuuridina waxa ku socda shaqo waxaa halkaas marka ka muuqata ama xiriir dibadeed ama mid guudeed ha aado horumarka aan hadda ku talaabsanay inaan u baahannahay kulligeen inaan wada fahamno ugu dambeyntiina wixii isku keenayn lahay aan adkayno waxaan rabaa mar labaad inaan idin mahad celiyo idinkuna dhiiri geliyo halkan safarkii aan ku nimid inuu ahaa safar miro dhal ah dardaarankii gabdhaha Soomaaliyeed ee reer Jubbaland dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland salaadiinta Soomaaliyeed iyo madaxda reer Jubbaland inaan sii qaadi doono madaxweynaha isagoo idinka wakiila iyo annaguna inaan sii wada shaqayn doono sida uu sheegana mar dhow isaga iyo madaxweynaheena inay sarki doonaan waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh agaag daawadayaal waxay intaan ku soo gabagabeynayna munaasabadda gaarka ahayd ee sagootinta ra'iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre iyo wafdigii la socday ra'iisul wasaaraha waxaadna ka daawanayseen dhammaan telefishinada Soomaaliyeed waxa kaloo ka dhageysanayseen idaacadaha Soomaaliyeed ee ku yaala gudaha iyo dibadba
inta kan xiga dib u kulmi doona waxaan kaga tagaynaa dhammaanteen oo isku duuban. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.